xuquuqda aadanaha markii laga hadlayo macnaheedu waxa weeye waa xuquuq uu leeyahay qof kasta asagoo aan loo fiirinaynin maaragtay qabiil jinsi meesha ka soo jeedo qof weyn qof yar waa wax universal ah oo maaragtay qofka uu u leeyahay laga qaadi karin marka xuquuqdaas waa xuquuq asaasi ah oo waxyaabo maaragtay qofka aan laga qaadi karin marnaba oo dabiici ah ololahan hadda aan ku guda jirna 16 bari waxaa loogu talagalay in lagu wacyigeliyo bulshada sida loo horumarin lahaa xuquuqda aadanaha marka xuquuqdaas la horumariyo ayaa maaragtay bulshadii qofkii maaragtay uu talentiga ama waxa uu leeyahay hibada uu leeyahay iyo maaragtay awoodiisa ay kor u soo bixi kartaa marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqda qofka kale inay ilaaliyaan xuquuqda carruurta inay ilaaliyaan xuquuqda maaragtay haweenka xuquuqda ragga cid kasta dadka laga tirada badan yahay marka ujeedkaas waxaan ku gaari karnaa horumar midaysan mar kasta oo lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha waxaa laga yaabaa inay maaragtay cawaaqibkeeda maaragtay ama ha soo daaho ama ha soo hormaro uu dhacaya iyada tusaale yar haddaan kuu soo qaato waxaa jirtay Nigeria oo kale qaabka maaragtay wax bilaabatay Boko Haram waxay ahayd jirdil hal qof oo kale lagu sameeyay maanta waxaan filayaa sida hadda inta la diiwaan geliyay ilaa iyo 120,000 oo qof oo kale xidad kor u dhaafayso oo kale in lagu dilay marka dadka marka xuquuqdooda haddii lagu xadgudbo ama qof canug yar ha ahaado ama qof weyn ha ahaado ama maaragtay rag ha ahaado ama haween ha ahaado asagoo aan la kala qaadaynin waxa la rabaa xuquuqdoodii in xuquuqda marka qofka bini'aadanka uu leeyahay waxa waaye wax maaragtay limitation leh oo meel ku eg oo aan maaragtay uu qofka asaga laftiisa ku tilaabsan karin xuquuqdiisa si uu u ilaaliyo waa inuu xuquuqda qofka kale waa inuu ilaaliyo mar haddaad ku xadgudubtid adiga xuquuqda qofka kale marka xuquuqo badan oo adiga aan lahayd ayaa laga yaabaa ayadana meesha iidahayd inaad ku weyso marka waxaa uga faa'iidaysanaynaa ololahan 16 bari in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland ay maaragtay ku dadaalaan sida loo horumarin lahaa xuquuqda qofka uu leeyahay